xogayaha arrimaha gudaha xisbiga ucid oo ku baaqay in la kala diro xildhibaanada golayaasha deegaanada ee Somaliland warkaasi waxa inoo soo diray Khalid Fantastic 23 degmo doorasho ee Somaliland 28 November 2012 waxay u dareereen doorashada codbixinta xildhibaanada golaha deegaanka dawladaha hoose ee dalka oo muddo xileedka xeerka dastuurku uu waafajinayo muddo 5 sano inay hayaan 28 November 2017 ayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee dawladaha hoose ee dalku kaga eeka balse muddo kordhisimo ay u kordhiyeen mudanayaasha golaha guurtida ee Somaliland waxay ugu dareen 2 sano oo muddo xileedkoodu kaga dhamaanayay 2 cisho ka hor 28 March 2019 sanadkan aynu ku jirno inkastoo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi muddo kordhisimo uu sameeyay golaha wakiilada ee Somaliland ay haba yaraatee aan ku jirin mudanayaasha golaha deegaanka dawladaha hoose ee dalku haddaba arintani waxa sharci darro ku tilmaamay kana hadlay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ucid Maxamuud Cali Salmaan Ramaaxa waxaanu hoosta ka xariiqay qoraal iyo saxiix dambe oo ka soo baxa dawladaha hoose ee dalku inaanay marnaba sharci ahayn waxaanu ugu baaqay bulshada Somaliland inaanay haba yaraatee wax cashuura oo ay dawladaha hoose ee dalku ay qaadayaan aanay bixin madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu ugu baaqay in sharcigu sareeyo maadaama xisbigii kulmiye ee uu ka soo baxay oo muddadii ololaha uu ku ololeynayay inuu sharci سرين دونه بيشا وحكو إكها مدحولاتكي قولياش الدجانكا السدح يلا واتنك الدجمة دورشو وحق غير الشرعية ساك حفي سيدا إنا يفرديان سيدا وشيغيو شرعي قدلك ويالا حير 23 29 تيدي بقول يكو او دستوركا إن أي غير الشرعي ما تيهين مدحوينها وكولو لينا الشرعي قاصر رينيا waxay ku tusinaysaa inaanay shantii madaxweyne ee hore dhicin in kuraasi iyagoo runtii qaar horeba banaana oo aan iyagana sheegi doono oo ay ahayd in la magacaabo kuraasidii golayaasha deegaanka laga bilaabo maanta wax sharci ah oo ay ku fadhiyaan dalka ma jirto meel kastaba ha noqoto dhammaan 23 degmo doorasho iyo kuwa wasiirku magacaabo ee degmooyinka dhiida aba dhammaan waxay ku fadhiyaan qayru sharci wuxuu ina farayaa xeerku marka tan oo kale timaado in xogayaha dawladda hoose oo ka wakiila wasaaradda arrimaha gudaha uu la wareego xilka isagoo kaashanaya maamulka gobolka iyo hay'adaha wasaaradda wasaaradaha iyagoo kaashanaya inay xilka si toos ah ula wareegaan madaxweyne maydin shantii madaxweyne hore dalku inuu galo fowdada caynkaasa waxa qayru sharciya warqad kasta oo ay maanta saxeexaan gudoomiye degmo iyo gudoomiye ku-xigeen degmo iyo xoghaye wax kasta oo saaka dawladda hoose ka soo baxa waa xaraan baan leenahay kumana taala sharciga madaxweyne waxa laga sugayay oo ilaa xalay aan sugaynay inuu qoraalka soo baxo aad ku igmato anagu fulin maniin qaladka shiraan sheegayna waa qayru sharci qoraal kasta oo maanta ka soo baxa dawladaha hoose waxa iyaduna la mid noqonayso xaraana inay qaadaan hanti ummadi leedahay inay qaadaan ummadda reer Somaliland waxaanu sheegaynaa in aanay wax xiriir la samaynin dhammaan dawladaha hoose oo inuu ognahay maanta halkay dadka ka taagan yihiin waxa intaas ii raacay oo mar labaad ku celinaya oo mar saddexaad ku celinaya wadanku madaxweyne fowdo uma taagayo madaxweynihii hore wuu kordhiyay riyaale wuu kordhiyay waa diiday inaad kordhiso ummadoo dhammi way soo dhaweysay inay kuraasta dawladdu banaanaato oo dalku fowdo galo waa xaraan baan leenahay waxaana tiri sharciga dalka ololeynay waxa iyana la mida kuraas badan oo dalka waa ogtiino gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Togdheer
ee aniga barasaab ku-xigeenka ii ahaan jiray berigan burco joogay halkan buu xil ku hayaayo waa la soo bedelay ilaa maanta wuu bannaan yahay keli maaha kuraas badan oo xukuumadda oon laga maarmi karin ay tahay waajib qaran in la magacaabo oo awoodda u leeyahay madaxweynuhu ayaan xaggoodiiba loo dhaqaaqin la xisaabtana hadalkiisa badaa madaxweyne mar labaad ayaan ku celinaynaa yididiilada dadka ku jirta iyo ummadda reer Somaliland ee dalkooda u hanka weyn leh in xukuumaddaadu ay ku soo noqoto sharciga dalka u yaala inaad ku soo noqoto sidii aad ballan qaaday inaad ku hogaamiso ummadda sharcigii waanaanu kaaga fadhinaa haddaad qaadan weydana waabaad qaadan weydo markhaatigeedii waan haynaaye waxaanu ummadda u sheegaynaa inay ka tashadaan xukuumadda maanta jirta iyo hoggaankeeda waa salaamantiin وخالد يوسف حسن فانتاستيك تلفزيون عالمي Somali Cable هرقيسة